koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kastiisuu hadlayaaho dadku waa Kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa Kalamaan wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha ka soomin dhagayste dadku waa Kalamaan intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii Kalamaan kadhur war badan buu hayaaye kadhur waryaa kadhur maalmahan buu maqnaaye war naga daawilaa wiiftada warna wax nooma gale waryaa may waran hayna inta haytan walqobatiin waa wal waysinya waxay iigu dareenimayo wiil xafiis fadhiya oo niyow iska leexanayo la anigu aqoonyahan baan hayo shahaadada waxaan haystaa ugu sareyso master baan haystaa master sida loo sheekeynay oo dadkii wax isku weydaarsanay qof walba soo turay sheekadii waxa soo gashay lacagta la yiraahdo taano marka wiilkii kursiga isku wareejinayo xafiiska fadhiyay wuxuu yiri nimayow taanadu meeqa kun ay ahayd shahaadada master taa maxay tahay shahaadatayn la yiraahdo qof muslim ah shahaadatayn haysan miyaa jira war odayga maanta waa wacdiya yaa u duceeyay warka yaa baan ku hayay waxba wiilka hala yaabina wadanka Hindiya la yiraahdo dameera ayaa waxay soo galeen beer geeda qaaliyo meel ka baxay bay daaqeen xabsiga loo taxaabay marka dad badan oo iyaga in xabsi loo taxaabo galshiro la wada geeyo loo kaab la wada yiraahdo u baahan baa noo jooga iyaguna dameeray xirayaan balaxa eega idinku ma hadda kuugu horeysa dameer la xiray Soomaaliya ugu horeysa dameer la xiro laanta buura lagu xiray sharcigii dameer xiray cid daryeeli maayee ka dagaalan baan Cabdi aadan xaadu ah Cabdi Qays wareeda war ma haysaane shirkii madaxweynayaasha Geeland iyo madaxda qaranka waxa ku furmaya Muqdisho qaarkood waa yimaadeen Muqdisho xalana lagu qabanayaa baa la yiri oo garoon korkiisa xalana wax la geeyana waa ogtihiin oo gacan kala ku jirta oo waxaan u madax banaanahay ma ahan mawaalan yaakane shirka dhimani muxuu yahay shalay iyo daraadii maalintii ka horeysa la xusay mawlidkii shirarkii waa dhamaadeen war qooliin iyo xeladin iyo ilkin iyo aakhirkiin bal dadkan waaweyn waxay dadku u sheegayaan bal maqla war wixii Jabuuti lagu qabtay oo galmudugii alsana shir ma hayna liir seminar buu ahaa seminar kan waxa lagu barayay sida khilaafaadka loo xaliyo ayaa lagu barayay shir ma hayna dadka beenta ka daayay igana bacdaysa taas annagu haddaan nahay maamul goboleedka Xumaland State waan qaadacnay shirarkoo dhan kamana qayb galayno war Xumaaladan diid inuu qaadacayo horaan ogaa war amiirkii ugu weynaa al-shabaab ninkii la dhahay Axmed Diiriye magaciisa xaragigaana la yiraahdo Abu Ubayda bin Nahyan geeda lagu arkaa leeyahay isaga iyo ciidamo tiro badan marka anigu waa yaabay geeda soo dawladdu ma joogin war adeero maamaada ma taqaanid dawlad ka gacan dheer bay ahayd war maahmaahida ma taqaanid shaki male laba shabaab inay wada shaqeeyaan bay ahayd war maamaada ku dheelin hadii waraaba la arko weer waa nin cidaa baaliye war ani warsiin haaye abuuro mansuur illa ii gadil tamariye waari walaagi yagadku ay ka jiro kurroogsidee waari xalina may martagaad lanka suubiyay gobolka leey bay dhawjanaay waanaad walan heesi gadgadoonto yalaari adiga doontay intii gadaha ka dhawaa laari ganfur dhawjo waryaa kii adiga shaah ma abta hadii kale kursiga banee waryaa adiga shaah ma abayso adiga waryaa biyo ma doonto adiga waryaa banee kursiga hadii kale shaah aba waryaa fadhi dirir bad wadal bis war adeerow shaah ma xarabi mayno mana aaminayna cid kale ka iibso waryaa kursiga ka hadii kale ba waryaa warnimada waxaan la yaabaan arkay aniga Liibiya suuq dadka lagu kala gataa ka furmay Afrikaan tahriiba oo saxaraha ka gudba ayaa lagu kala gataa suuq looga furay waa la naadinayaa sida xoolihii waa la tuujinayaa dadka qofka caatada waxa leeyahay qofkan waa caate lacagta iga dhin dadka meesha lagu kala gadanayo Afrikaanka Soomaalida ugu qaalisan 7,000 weey qofka Soomaaliga Afrikaanka kale ninka ugu cayilani waa $400 ama qofka ugu cayilani Soomaalida waa yaabay maxaa qaali ka dhigay warniyow sanacay ahayd meesha dadka miisaanka lagu saari jiro ninka buuran kan caatada lacagta looga qaadi jiro kan buuran inta laga qaada kan caatada la sii jiray beenta naga daa walaalahay dad badan oo meeshaan yimaada dhakhtar dhimirka u baahan ninka doctor xayo ka soo fakala u malaynaya war adeero madaxweynaha Faransiiska wuxuu yiri Afrikaanka inay qaali noqdaan anaga u keenu dhahay waayo waa gumaysano dhawaag hore haddana magdhaw aan siinu dhahay Afrika dhan oo la gumaystay magdhaw aan siina say taariikhku joojiyaan war waan la soconaa xalay inay FIFA ku dhawaaqday isku aadka koobka adduunka Ruushka ka dhacaya madaxweyne waa ciyaartoydiisa waxa laga hadlayo wuxuu ka hortagayaa xulka weyn ee qaaliga ma isfiida mise Uruguay alla talow ii sheega war taliyay ciidanka Serbiyiinta ee Bosnia xasuuqay maxkamadda adduunka ayaa la soo kadibna xabsi daa'in ayaa lagu xukumay baaliir markii ninkaas uu maqlay in xabsi daa'in lagu xukumay ayuu sun ka dhargaysan wariya farmaajo waa yimid Farahan ugu taagin Serbia ma tagin Azerbaijan ma yimid wasiirkeena arrimaha dibadda Yusuf Garaad Lutuweeniyo la kulmaalay Lutuweeniyana maxaa laga galay ma shaqo waay wasiirku wariya ma inoo galay maylare howaal meel biyaan hunguri wadi wadayna manta war reelo ondheegi ninka 12 December على مسار ينيو قل يرى
mitir uu madaxweyne uga dhawaaqayaa baa la yidhi على مساريا على مسارك مدحوينها سومالي لان موارو فرماجة كقيب قلن مدحوينين الصومالي واكا كان هجورة كياتي أودينجا ريلو أودينجا كقيب قلن ورا لو ضد مكان التقاني مدحوينها جبوت إسماعيل عمر قال لي وريا داوي فلاس أنا داوي فلاس نيو أنا داوي فلاس داوي فلاس والله والك داوي وريا حبيب